Gudida Nabadgalada G.Togdheer oo hogaaminayo barasabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayd duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer Cali Maxamed Farax Gaadayre taliyaha ciidanka asluubta Jaamac Baadi maamulaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer ayaa safar dheer oo saacado badan qaatay waxay ku marayeen tuulooyin hoos yimaada gobolka Togdheer sida Waraabeeye Baliga qoorbaxay Baliga cumar oo hoos yimaada gobolka Togdheer Gudida Nabadgalada G.Togdheer ayaa baabiyey guryo iyo Deegamaysi cusub oo sharci darro oo laga hirgeliyay Baliga cumar oo ku yaala deegaano hoos yimaada gobolka Togdheer waxayna xabsiga u soo taxaabeen dad faraha kula jiray Deegamaysigaasi sharci darrada ah sidoo kale waxay tuulada Baliga qoorbaxay ka soo qabteen dad dhaqdhaqaaq nabadgelyada kulliyada ah ka waday deegaanadaasi barasabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayd iyo maamulaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa si adag uga hadlay arintaasi iyagoo sheegay inaanay u dul qaadan doonin cid kasta oo doonaysa inay Deegamaysi cusub samayso waxa keenay maanta hawlgalkan sandaqada iyo meherada laga sameeyay waxa jirta wareegto madaxweynuhu hore soo qoray oo mamnuucaysa in deegaan cusub la sameeyo dhulkeena nabadguur aad u ballaaran baa ku dhacay waxa nabadguurka u sababa deegaanada cusub la sameeyo deegaankeena hadduu baaba'o meherada noqdo neef geela iyo neef adhi iyo neef loo itoonayno waxay maayo nabadgelyadeena khatar bay gaalis kolle gobol ahaan wasaaradda deegaankana waxaanu amraynaa wixii deegaanan cusub ah inay u soo gudbiyaan Gudida Nabadgalada si talaabaltan oo kala looga qaado waxaananu diyaar u nahay qarankana wakiil kaga nahay in ciddii deegaanka baabiinaysa ciddii nabadgelyada xumaynaysa ciddii magaalo cusub samaynaysa inaanu gacan biro ku qabanno baliyada dee lama magaalin jirin waa laga cabi jiray waqaf baa laga dhigi jiray waxa weeyaan nin walba imika baligii awowgii qoday ama abtigii qoday hadduu yiraahdo magaalan ka dhigaya dee dhulku inama qaadayo marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda hawshan nagala soo qayb gashay wasaaradda deegaanka waxaanu ballan qaadaynaa inaanu meel kasta oo ay hawshaasi ka jirto aanu gacan bira ku qabanno haddii la yiraahdo dhanka kale taliyaasha ciidanka booliska iyo asluubta ayaa af adag kula hadlay cid kasta oo nabadgelyada iyo sharciga khilaafta la markaasina ay gacan bira ku qaban doonaan maadaama ay nabadgelyada qaranka iyagu uga mas'uul yihiin annagoo gudanayna waajibaadka iyo mas'uuliyadda saaran saaka ciidankii gobolka Togdheer iyo barasabkiina hogaaminaya maayirkiiba oo nala socdaan iyo deegaankiiba waajibaadkiina saarnaamaanu gudanay meeshina waa baabiinay wixii aanu dad ugu tagnayna waanu qabanay waxa kale iyaduna jirtay balay xaggaas oo la waxba la isku urusay iyaduna oo qoorbaxay la yiraahdo waa soo maray uguma naanta wax hubaysan laakiin dadkii aanu aragnay saansaan colaadeed inay muujinayaan iyagana waa soo qabanay meelaha kale iyadana sidoo kale hadalka uga taagan yahayna sidii caadada ay noo ahayd talaabaan ka qaadi doonaa sharciga la khilaafa ama la jabiyaa wuxuu keenaa ciqaab waanu baabiinay wixii dhismaha halka ka socday ciddii waxa kale oo iyadana aan ognahay oo la sheegayaa in ciidamo jiraan ciidamo la isu urursaday oo qoladana halkan tuuladan aanu gubnay dhinaceeda joogto qolana tuulayaashan kale qaar ka mid ah ay joogaan nimanka kumaana qaban runtii cid hubsidata laakiin qoriga waan la xasaysanayaa laakiin dadkii isagoo joogaanu la kulannay dad badan baanu soo xidhnay oo aanu u dareennay inay yihiin dhallinyaradii isurursatay labada dhinac ahayd Gudida Nabadgalada G.Togdheer oo hogaaminayo barasabka gobolka Togdheer ayaa baryahan u dambeeyay dardargeliyay baabinta dhulalka sharci darrada ah Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi TV qaranka magaalada Burco